السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستو هذا دون كجوجتان دما waxaa ku salaamantiin salaanta islaamka. Waxaan doonayaa maanta muuqaalkaygan inaan saddex arrimood idinku soo qaato oo 24 saacadood ee u dambeeyay baraha bulshada ka jiray ama waxyaalihii u dambeeyay. Waayo arrinka koowaad ee soo qaadanaa waa dagaalkii hawdka. Arrinka labaad ee soo qaadanaa waa dagaalkii laascaanood. Arrinka saddexaad ee soo qaadanayna waxa weeye meeshii commissionka iyo doorashooyinkii la isku haystay oo lagu dhawaaqayo iyo waxa la filayo oo si cadaan ah iyo waxa kale la sii filayo hal iyo laban ka oranna iyadana waa inaynu sheegina waa inaynu istaagna waayo waxa ka horeeyna dagaalkii hawdka waxaan ka codsanayaa muuqaalkan waxa uu soo gaaray 27.7 isoo taagan waxaan ka codsanayaa inaan ugu imaado muuqaalka qof kasta oo channelkan daawanaya inuu subscribe gareeyo 27 ka caaw xidha waayahay intaas waa intii yarayd waayo horta bal dagaalka hawdka waxaad ila daawataan nin kamid ah saraakiisha dadkii dagaalka soo qaaday ahaa dagaalkii ka dhacay in meeshii qoriluga agteeda oo hadlayo la nabad doon qodoonina ama anagu cidna ku duulimaad kuma nihin balaynu isleegno oo haddii aanu sii tilmaanana ah nin reer buu hoodlaa balaynu isleegno عدي هرتي بقى وين سيدا درتد عندك يجي وجهه وحويررو إلى قادان ما دونينو odayaasha uqaashi shay loo yimaadeen waxyaan wax weerar qaadaan ma jirto difaacina ku jira difaacaas waayo muuqaalka ina daawateen ayaan rajeynayaa ninkaas waa nin kamid ah dadkii boqol ku sugnaa ciidan beeleedyada hogaamiya saan jeclahay ninkaas isagoo u hadlayo waxa uu doonayaa nabad horta anu markii hore baan ogaa dagaalkaas inaan ahayn dagaal ka soo go'ay reer Buuhoodle laakiin uu ahaa dagaal la soo dhex marsaday kaasoo ay dad iyaga dantooda wadin ay dagaalka wadeen soo kale waxaan ognahay in iyagu qulul fuudaadeen oo ay dagaalka ku fuudaadeen oo ay maartay meeshinkii la yara dhex marsaday in kastaanu baashu sidii la doonayay ayna noqon hadalkaasi waxa uu qoysqoyn u yahay dadkii lahaa dad baan beegsanna reer miyan leeyna waxaan sameeynaa sida oo kale dabcan maadaama uu hadlaaya hadda uu hadlaayo ayadana waxaan ka dareemayaa inay rag is arkeen ogtahay dadka sharafta imka bulshada waxa ku jirta qori caaradii marka uu ninku arkay inaad hadii aad maartay aduu de maartay hub isku haysto qof inuu hub haysto ama awood leeyay hadii ku arkaad inuu hub haysto garabkiisu ka eegaya laakiin waa qiyaamihii ba soo dhawo qof kasta dad bila qorite hoostiisa ka eegaya marka waxa ma qoriyo waaweyn meesha ku arkay way taas intaas ka imanna laakiin kulliba dadka meesha degaa waa dad goba waa iskaftamaya waa dad goba waana dad marka hore maartay ragaas iyaga khalad ka lahaa ninka hadlaya waxa la soo dhex marsaday baan ahayd imkan hadii ay isfahmeen waa wax fiican oo dadka wala ayaga dadkaas iska kaya xiga labada qof ay see ka dhaway see ka deegaan oo iyaga iska xiga dhalashada iyo abtirsiinta waxa ma tarto dadkaas in nabad ku wada noolaadaan iyaga dan ugu jirta way taa halkaas ka imanna waxaan tagnaa arrinkii laascaanood bal waxaad ila daawataan sheekha oo maanta masaajid ka hadlaya bal ilaahay oo reer laascaanooda dadka kale marka oo kale waxa dhexdooda waa dhigaan wuxuu idinku dhexdiina asaasataan marka oo kale dadka kale waxa iyagu waxa dhexdooda waa dhigaan uu ooya markaas ninku geesiinay waa u kaabtada waxay ku heshiiyaan war maxaa maanta waxa dhexdeena inoo tahay laascaanood waxaan la mari kari waaye meelo laamiga iyo meelo kale wallaahi markaan marayo ama qofka magaciisa laygu soo qaado baan xaq idhaa qaarna meesha dhiigiisa ka sii muuqanayay markastaan marayo waa qalbigayga ku soo dhacda ما ميل كستو الله تعالى كميدا إنه كنا إنه وديك يقص لابد أن خلق كان هديك له وعليه علماء المساجد هذا حلو معاهد حلا حلو ولا هذا حلا حلو دمر كي عبور تهلود يا دمر كي عبور كيوهم بيكون ما عليه حتى النظار قلت زي بلي نوعين يعني ممكن نسكت على أي عبور مجال اللود أي أي نصايل إنه حطينا وحبط رأيني أنت أنا فدينا فربنا أنت أنا فدي مثل المساجد يقول يا شيخ horta arin soo qosol ma ho meesha aan qofka soo ku dhinto aniga iga dhintay moogtay dad intuu ka hadlaya laakiin qaabka uu hadlaya iska yara qosol wallahi runta marka la sheego waa sheekhiiko waa ninkii sheekha ee ooyay ninka hadda waa ooyaya waxa uu ooyay inuu dagaal dhaco wuxuu doonayaa in sarag la noqdo mid ilaahay meesha ku haliyay uu ooyaya bul sheekha marka
ilaahay uu dagaal dhacaa la eegado ka dhaqaygu masaajidka jooga wax kale ka oohimayaan waxa dhiigooda aan daadino waxa aan sameeyno waa anaga dhiigay hana la daadiyo oo yahay ninkaasi inna ilaahi wa inna ilayhi raaji'un waxa uu soo kaleeyay dadka ciyaalka aweyn meesha lagu sii daaya dumarku ha galaan waxa uu doonayaa inta rasaas iimaanka laga soo qaado ama sunta yar maartay tibada dumarka iyo dadka maartay markay fawdo baasho bilaabaan inta badan dawladdu waxa isticmaala bas meel la isticmaashaa waxay dadka ku buufisaa baasho wax ka iilamaysa moogtay hawaayo sunba lagu buufiyaa oo ilaa kala xabad loo qori maayo dad masaakiin ala xabad qori maysa marka sheekhaasi arkiis hal iyo laba ka tilmaamayna horta meeshii sida uu sheekhaasi uu yaabashay ayaa ka sal ah meeshii umad ilaahayna waa isku timi wax ilaahay uu meeshii u dhaqaaqayana ma jiro hadii aynu ku noqono Cabdirsaaq Khalifa waxa uu noo sheegay in gooja cadde amarka waxa weeye isaga iyo waqtigii uu ahaatay maartay odayga baarlamaanka ee hadalkiisu qadarinta lahaa in lagu geeyay gooja cadde maartay oo gobaansho lagu geeyay oo ciidanku halkaas tageen oo magaalada ka baxeen halkii ay magaalada ay maalinka istaageen ayay wali joogan hal waliba maalinka soo geli karaan maalinka ilaahay uu soo geli karaan laakiin waxa way dhiiga meesha ka dhacaya ayuu baa inta badan maartay loo kaadiya marka ninkaasi waxa uu la yaabayahay wixii bariga soo socday wixii galbeed ka yimi wixii meelaha sare ka soo socon jiray wixii waxa qaban waayay ilaa quwadda meesha taale runta marka la sheego anigu lama yaabayo in dadkaas waxa qaban waaya dadka qaar baa le meelaha ka caytama dadkeeni yimi maaye waxaas maxay wax qaban waayeen dadka qaar waxa lahada laakiin marka xaqiiqda ogtahay waxa ku mashquulaysid waayo quwadda meesha taale oghay ma ogtahay marka la Puntland baa dagaalamayso kale waa ilaahdaa waayo Puntland waa haysataa waa oran karaa laakiin marka diro soo ursa xataa Puntland wallahi inay wax ka bedelayso anigu uma malaynayo marka sheekha waxa la yaabira oo sheekh maartay iska maartay xaqiiqda ogaaday arrinkana marka hore arrin masaakiin isaga culimada iyo ciyaalka iyo dumarka u yaala mu ahayn dagaal si qaldan maartay loo geliyay ayuu ahaa insha Allah ilaahayna uu khayr maartay nagu dhameeyo in rajeynaya taasna xaaladeedu halkaas maraysa markastana wax waa dhici kara meesha way dhinkii Soomaaliland waxa saacadaha soo socda la rajeynaya in lagu dhawaaqo ama qradi commission ay yiraahdaan doorashadii ururada soo horeysa doorashadii madaxweynaha soo horeysa madaxtooyada soo horeysa taas ay reer Soomaaliland u dhigtaagayaan arrinkaas oo runaantii isagana arrin culeyskiisa leh insha Allah lagu dhawaaqana waa eegi doona laakiin arrinkayga waa sii taaganaya anigu waan si nasiibinaya waxaan idin nimankaasi waxay ku dhawaaqayaan doorashada ururada ay aniga ka tawa fikirkayga ciidan wax la ogay ma jiro cid waxay sheegtay ma jiro laakiin aniga fikirkayga markaan xaaladda wax yara qiimeeyay waxay soo baxday doorashada ururada lagu dhawaaqayo way taasna xaggii Hargeysana iyo dhagdhe maartay xag Soomaaliland oo dhan taana waa loo dhigtaagaya barnaamijka intaasan iska joojinaya waa barnaamijyadii waa arrimihii u dambeeyay maartay dadku aadka u hadal hayeen ama xogihii la iga sugayay ama xogaha u baahnaa in laga hadlo xogahaas ay haayeen insha Allah wixii soo cusboonaadana waa in la soo socodsiin doonaa waxaan ka codsanayaa inaad maanta xidhaan 28ka insha Allah oo aanan muuqaalka ku xiga aanu imaado baashiyada halkaas qof kasto ay soo booqdana in subscribe saaro ayaan rajeynayaa waayahay bal waxa muuqaalka ku xiga intaan ku kulmayno waxaan ku leeyahay sida iyo nabadgelyo